wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland ayaa shaacisay in 6 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19 agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo 10 May warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in tirada ilaa hadda ay xanuunkan u diiwaan galiyeen ay dhan yihiin 40 ruux oo 5 kamid ah ay u geeriyoodeen agaasimuhu waxa uu sheegay in 60 qof ee xanuunka laga helay mid kamid uu ka yimid magaalada Berbera isla markaasna uu yahay ruuxa geeriyooday 5 kalena ay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa waxaanu tilmaamay in 60 qof 5 kamid ah ay sidoo kalena yihiin rag qofka soo harayna uu yahay qof dumar ah oo maalin axada bisha May ay tahay 2020 waxaynu mar kale maanta halkan isugu nimid si aynu bulshada ula wadaagno heerka iyo xaaladda guud ee xanuunka la yiraahdo COVID-19 halka uu marayo 6 qof marka waxaan bulshada Somaliland u sheegayaa in cadadka ama tirada xanuunka laga helay ee lagu xaqiijiyay ilaa intii ay hawsha waday wasaaradda horumarinta caafimaadku ay tiradu marayso 40 xaaladood ama 40 case 40 ka xaaladood 5 xaaladood oo ka mid ah waa dhimasho dhimashadu waxa ay maraysaa 5 qof halka bogsiyuhu uu wali 3 qof yahay dadka inta kalena waxay u qaybsan yihiin dad isbitaalka jiifa iyo dad ladan oo meelo aan ku hayno oo ay wasaaraddu ku hayso meelo gaar ah oo lagu ilaalinayo inta xaaladooda ay negative noqonayso haddaan dib ugu yar noqdo 6 qof shalay u dambeeyay waxay u qaybsanaayeen 5 rag ah iyo 1 haween ah iyada oo da'dooduna 3 ka mid ah ay u dhaxeeyeen 30 ilaa 40 jir halka 2 ka mid ah ay ahaayeen 60 ilaa 70 jir qofna uu ahaa da'da u dhaxaysa 40 ilaa 50 agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland oo hadalkiisa si watay waxa uu sheegay in tirada ku jirta karantiinkuna ay dhan yihiin 64 qof aanay waxba ku soo kordhin waxaanu sheegay in 24 saacadood ugu dambeeyay ay xuduudaha dalka ka soo gudbeen dad tiradooda lagu qiyaaso 2964 ruux oo dhammaantoodba lagu hubiyay astaamaha leeyahay xanuunka COVID-19 dhinaca kale Dr. Xirgeeye waxa uu sheegay in maalinnimadii shalay ay dawladda Imaaraadka Carabta Somaliland soo gaarsiisay mashiinkii labaad ee lagu baadhayay xanuunka COVID-19 mashiinada ay Somaliland haysatana ay dhan yihiin 2 mashiin sidoo hadalka u dhigay waxaanu sheegay in si kordhi doonto tirada baadhista ah ee mashiinadaasi lagu sameeyo ay dadka la socdo baabuurta ganacsiga ee laga hubiyay 24 saacadood ee u dambeeyay calaamadaha xanuunka ay yihiin 2965 halka aan runaantii qof gooni loo reebay oo lagu arkay xumadiyaan ku jirin dadka la eegay sidii kor loogu qaadi lahaa baaritaanka iyadoo waliba ay la socdeen qalabka kale ee lagu soo sanka iyo qofka laga gelinayo oo marka hore tiradoodu inagu yaray iyadana ay la socdeen cadad wanaagsan taasoo inoo suura gelin doonta inaynu shaybaarka kordhino oo aynu dad badan shaybaarka ka qaadno amsi xirsaxay si aad joogto uga hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaangeli channelka YouTube-ka ama dooro bogga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka